أولا إلهي مادله marka magacay waa maxay Ibrahim Maxamed waxaan ka socdaa gobolka Sool waxaan faraxsanahay dhigashada kuliyadda tababarka macallimiinta si fiican bay casharo noogu socdaan si fiican baan u qaadanaa dhamaan waxaan ku raadayay koorsada aad baan soo dhaweynayaa inaan qaadano liisanka macallinimada anigoo ah Samir Axmed Laaye waxaan ka socdaa gobolka Maroodijeex waxaan hayaan dad ka faa'iideysanaya tababarka macallimiinta qaranka waxaan kuliyadda ugu horeysay laga aasaso gobolka Hargeysa aad ayaan ugu faraxsanahay barashadan baranayo inaan u faa'iideyn karo waxbarashadayda inaan u faa'iideyn karo ciyaalkeena hadda soo kacayeen يعني بربارين في عصيو magacaygu Axmed Aadan Muuse waxaan ka socdaa gobolka Togdheer magaalada Burco aad baad ugu maasanta runtii aad nagu soo boqotid kulliyada tababarka macallimiinta waxaan ka ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Toorno agaasimaha waxbarashada Axmed Abakor iyo dhammaan waxyaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada runtii wax la yaqaan farxad weyn ayay ii tahay inaan ka mid noqdo macallimiinta loo tababarayo ama lagu tababarayo kulliyada tababarka macallimiinta maanta waxaan ku sugannahay waxa weeye waa kulliyadii dhexdeeda ku sugannahay kulliyadda wax la yaqaan hadda waxa ku jira arday aad u fara badan oo kala duwan oo ka timi gobolada Soomaaliland min bari ilaa galbeed marka waxa fursad weyn oo ka mid ahayd fursadaha ama waaweyn oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland soo kordhiyay magacaygu waxa weeyaan Rooda Aadan Dirir waxaan ka socdaa gobolka Saraar gaar ahaan degmadiisa ama magaalada madaxdiisa Caynaba waxaan ka soo baxay dugsiga hoose dhexe Horyaal Primary School dugsiga asaasiga waxbarashada waxaan ka soo qaatay dugsigaas dugsigii sarena waxaan ka soo baxay Guutaal Secondary School aad baan uga salaamayaa marxaladan maanta ku jirno ama aan marayno kulliyadda tababarka macallimiinta runtii aad iyo aad baa baahi loogu qabay in la helo kulliyad tababar macallinimo oo khaas ah macallinka lagu tababarayo si macallin u noqonayo Soomaaliland aad kama maaranto inay hesho macallin ama arday loo tababaro inuu macallin noqdo waxaan kaloo ka faa'iidnay kulliyadda tababarka macallimiinta isdhexgalka gobolada iyo inaad barato dad ka duwan dadkii hore aad taqaanay chance fiican weeyaan chance-kani ama waxa la oran karaa waa fursadda ugu qaalisanayd muxuu hayay wadankan Jamhuuriyadda Soomaaliland laga ansixiyo hobbigeygana way ahayd inaan yani wax soo saaro kulliyadda kale runtii wax la yaqaan macallimiinta hadda dhiganaysa waxa lagu tababarayaa nidaam ka duwanaa nidaamada hore ee wasaaraddu markii hore qaban jirtay oo ah in wax la yaqaan lagu tababaro macallimiintan sida ay wax la yaqaan ay hadhowto markay tagaan goobihii waxbarashada ay ubadkii ay wax la yaqaan ugu tababar lahaayeen nidaam ka duwan nidaamada hore ardayga in laga shaqeeyo creativity-giisa awoodiisa ama talent-kiisa la soo saaro oo wuxuu ku fiican yahay la ogaado runtii waxa taalo waxbarasho aad iyo aad muhiim u ah ardayguna oo aad uga faa'iidayo mustaqbalkiisa dalkiisana uu ku horumarinayo waxaan ahay madaxa akademiyadda kulliyadda macallimiinta hadda dugsiyada gacanta ku haya walibana khaasatan dugsiyada hoose dhexe in tayadooda tababarnimo ee macallinimo ay u leeyihiin xirfadan ay ku shaqo tagayaan in kor loo qaado taasoo kulliyaddu ay ka tahay tiirka ugu muhiimsan macallimiinta waxa lagu tababarayaa inuu macallinkani marka koobaad waa inuu maadada yaqaanaa maadada uu dhigayo waa inuu yaqaanaa marka labaad waxyaabahan ku tababarno waxa kamid ah manhajkan uu dhigayo sida loo sameeyay xaqu ka yimi manhajkan inuu aqoon u yeesho waxaanu sidoo kale ku tababarnaa maadaama manhajka macallinka uu aqoon u yeeshay inuu haddana aqoon u yeesho waxa weeyaan habku u dhigayaa maadadan uu aqoonta u leeyahay ummad marka la doonayo in la dhiso halka ugu muhiimsan in laga dhiso waa waxbarashada marka waxbarashadeenu ogtahay geed socodkeeda kala duwanaa maanta meel fiican bay maraysaa anaguna runtii waxaan rajaynayaa inaan baahiyaadka faraha badan ka jira degmooyinka iyo gobolada inaan waxa weeye aan qayb ka noqono oo aan ummadayada iyo qarankeeda u shaqeyno oo higsiga qaranka ee wax la yaqaan waxbarasho tayo leh in la helo aan waxa weeye qayb ka noqono macallimadu waa aad bay u fiican tahay waa darajo aad iyo aad qaali u ah waxaana gaaro qoftii yacnihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waa darajadii ambiyadu markaas ay joogeen inuu qofku cilmiga uu sii gudbiyo maadooyinka la dhigtaa waa common course waxaa la dhigtaa dhammaantiis 10kii maadada secondary lagu dhigin jiray marka maadooyinka si fiican bay u socdaan macallimiintuna si fiican bay heegan ugu jiraan iyo maamulka kulliyaddu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin